waxa la sheegay inuu jiirku noolaan jiray beer ay ku noolaayeen nin iyo gabadhii maalmaha ka midana isagoo iska eegaya jiirkii ninka iyo gabadhiisa waxa uu arkay iyagoo madbaxa dhigaya cunto aad u udgoon aad ayuu ugu xiiso qabay jiirku inuu arko waxa ay tahay cuntadaasi markuu soo dhawaadayna waxa uu arkay inay dabin tahay waanu booday oo banaanka ayuu u cararay si uu asxaabtiisa uga digo dabinkaas uu qayliyay jiirkii laakiinse jawaabaha asxaabtiisu mid niyad jabisa ayay noqotay digaagadda oo maqashay qayladiisu waxay ugu jawaabtay jiirow waxaas waxba igama gelin imana saamaynayso waxa uu u tagay jiirkii wan isagoo ka dalbanaya caawimaad laakiinse waxa uu ugu jawaabay wankii waxba kama qaban karo uu cararay jiirkii waxaanu u tagay dibi waxaanu ugu jawaabay dibigii iga raali noqo jiirow anigu nin dabin wax ka qaada ma ihiye godkiisii ayuu isaga noqday jiirkii isagoo murugaysan markii habeenkii la gaadhayna waxa dabinkii ku dhacay mas soo galay guriga waxaana aragtay gabadhii beeroolaha oo isku dayday inay ka saarto dabinka laakiinse uu qaniinay maskii waana qaylisay dhakhtarka ayaanu dhigay waana la soo daweeyey markii gabadhii lagu soo celiyey guriga waxa uu u qalay digaagad si ay ugu qadayso aad ayay u tamar darnaatay waxaana u baahatay dhaqaalayn waxaanu qalay ninkeedii wankii si uu u quudiyo dadka u yimid ee martida ah iyadana uu wax uga siiyo xaaladii gabadha ayaa sii xumaatay waana geeriyootay si loo quudiyo dadkii aaska ka soo qayb galayna waxaa loo qalay dibigii xaaladahaasoo dhan waxa uu ka daawanayay jiirkii godkiisa isagoo ka murugaysan sida ay asxaabtiisu isaga indhatirtay iyo sida ay iyaga u laysay iska indhatiridaasi dulucda sheekadu waxay tahay waryaan laysku daawan dhibka oo haddaad aragto qof walaalka ah oo Soomaaliya oo dhiba haysato u gargaar adoon u eegin reerka uu yahay iyo magaalada uu degan yahay laga yaabo haddaad ku eegato inuu adigana ku soo gaaro dhibkaasi